waa degmada Aadiyabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe maanta waxaa lagu qabtay munaasabad xariga looga jarayay mashaariic horumarineed oo dowlad goboleedka Hirshabelle ay ka hirgelisay degmadaasi waxaana xariga ka jaray madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe oo maalmahanba howlo shaqo ku joogay degmooyin ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle munaasabada waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka Hirshabelle madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe oo la hadlayay dadkii ka soo qayb galay munaasabada xariga looga jarayay mashaariicda horumarineed ee laga fuliyay degmada Aadiyabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxa uu sheegay in mashaariicdan ay ku timid dadaal ay sameysay dowlad goboleedka Hirshabelle maadaama degmada Aadiyabaal laga xoreeyay maleeshiyada qabaariinta al-shabaab Aadiyabaal safaradii hore ima jirnay dib u xoreyn ayaan u ima jirnay wadogaydo tuuta noogu jirtaan ima jirnay waxa Ilaahay maadiisa maanta inaan xiriir jar iyo dhagax dhig iyo xaflado mashaariic horumarineed ee degmadan ka fushay inaan maanta u joogno iyo ummadii isu soo bax wanaagsan sameynayso iyo xaflado waa Ilaahay maadiis cid kaste duulaankaas cadawga looga dulqaaday ummadan gacan ka geysatana waxaan leeyahay mahadsantiin degmada Aadiyabaal waxay ku jirtaa degmooyinka dalka ugu qadiimisan dadkeeduna ilbaxay yihiin laakiin horumarkii ay mudnaaday inayna helin ayaa ka muuqdo maalmihii aan imaanaynay 20 sano cadow waa la helay maalmihii aan imaanaynay 10 qoys uma joogin 10 qoys oo joogtana dadku qalbiyan ayaa dib u dhacay markaad ka hortimaado waa rogmaayeen cabsi ay qabaan iyo culayskii lagu haayay 16 sano keenayo maantana farxada nooga muuqato haday dadka tahay qalbigooda iyo moralkooda iyo muuqaalkooda iyo haday tahay dhismaha degmada wax badan isbedelay waxaan hubaa in culays raay laga qaaday ummadda ku nool Hirshabelle guud ahaan gaar ahaan ummadda ku nool degmada Aadiyabaal anaga og inay ahayd degmo qadiimi ummad badan ay ku noolaato 10 qoys ma joogin qof la cabsi geliyay ee la handaday iyo qof ka carartay xaaladda meesha ka jirta day aragtay ku noolaan weysay ka carartay ay ahayd ummaddu waxay ahayd dalka Soomaaliya meelaha ugu waa maaragtay xarumaha ugu waaweyn ee cadawgu lahay ay kamid ahayd ummadda lagu cabsi geliyo deegaan kasta iyo degmo kasta oo ka tirsan gobolkaana meesha looga yeero dadka lagu dhibaateeyo ee qof la xiray iyo qof la handada looga dhigay la yiraahdo Aadiyabaal imaanaysa halkaan ay ahayd xarunta ugu weyn oo 16 sano cadawga ummadda uu ku dhibaateynay ay ahayd Aadiyabaal 16 sano idin la jireen nimanka cadawga ahay hal mashruuc ay ka fuliyeen oo isugu kiyeereen waxaan idin qabanay mashaariicdana idin fushay ay diireen ma la arkay maanta indhiina waxaad ku arkaysiin mashaariic dhowr iyo 10 in hal maalin xiriga laga jaraayo waxay ku tusaysaa cadownimada ay ummadan u qabeen waxay ku soo kordhinayeen ma jirto anaga og maalina waxay ka qaadayeen sakawaad wax la yiraahdo dadkana waa ka qaadayeen dunyadana waa ka qaadayeen dalaga soo baxana waa ka qaadayeen qabiil la taaqulayn wax la yiraahdo oo ummadda ku dhibaateeyeen ay u saarayeen muddo ay tageen lacag leeyin ku qoray la leeyahay taaqulayn ama culayskaana yimid wax ka qaata ma jiro